وياي وحنا جوا قدام حكومة برلمان الصومالية ومصر مودي والشركة المسلمين هي متقانا لو سبب دقيقة برستيشن كا دافري مانتا مركا waxaan weydiiyay anagu waa dagaalsanayna waxaan lahayn nimanku dalkii xaraashiyaan shidalkii xaraashiyaan idinku maxaa islahaydeen meesha أنا وحنا إصلاحين ماشان وأنا وين إن ما روح الوحرة شاهين ورسوقين كلي وحنا لهين بالهرت واحد هاي ستان ومد أدونك أوجاتان لهين وحنا صوب بندقين بدأ عذانا ذا وحمر كاتب كنا ديب ست بدأ عذا ولا صوب بندقة بدأ عذانا ذا صوب بندقين السنة أركان وهاي سنة بدأ عفي عن أو قد ما يسنا هاي سنة ضد كتصني هاي أدونك نواتسني وأر لكن واحد يبينا يوحكي ماشي مجال ويا سؤال واحد تاي قرمش ذلك maanta halka barwaaqada ka dhacday daltusi ee Soomaaliya laga helay farxad badan goormeed dadka mataqaan Soomaaliya ay ka manafacsan doonaan kula tahay daahir saaxiibkay daahiro waa mahadsantahay su'aasha aad u fiican tahay horta waxaan sharci lahayn lama sameeyo sharciga jira shidaalka sharciga loogu sameeyaa baarlamaanka horyeela sharcigaas markuu baarlamaankaas oo gudbiyo oo baasi wixii ka dambeeyay ayaa la geli karaa baaritaankiisa iyo waxqabadkiisa markaas uu noqon doona adduunkana sharci uu yaqaana laakiin hadii sharciga qabyano sharcigaas marka dhameystir wixii ka dambeeyay waa laga howlgeli doona waxaan jecelnahay Soomaaliya baahi badan hayso wax isku dagaalaysa baahi waaye dhibaatada jirta baahi waaye waxa adduunka ay haysato nimcada ay haysato inay soo saarato wixii anaga naga dambeey anaga soo gaar wax anaga naga dambeey inay ka faa'iidaan oo ummadii ay nacfigeed ay hesho ayaan rabnaa laakiin uma taagnin damiirka anagana nama siinaayo Soomaalinimadana nama siinayso wax ummadda Soomaaliyeed aysan ogeyn oo raalli ka ahayn in la sameeyo ama la xado anagu diyaar uma nihin aniga shakhsiyan kama qayb qaadanayo ummadda Soomaaliyeed wax ay leedahay in la khiyaameeyo inaan ka qayb qaato diyaar uma nihin mas'alada guuxa muday gudoomiye wax guuxa faraha badan ee dadku ka shakinayaan laftiinu wacyi gelid dadka ma siinina waxba uma sheegin waxa laga waraa shidaalada ka dhacayo intaas shirkadaha shidaalka isugu imaanayo marka dadku waxay loo sheegay inay qaataan soo xaq u mara dadku sheegin runta waa run waay arintaas aan jirto waay wacyi gelinta waa in la sameeyaa waa ku waafaqsanahay dadka ay ogaadaan waxa ay leeyihiin inay ogaadaan waxa looga shaqeynaa inay ka warqabaan xoolahoodii waxood inay ogaadaan waa arin muhiim ah loo baahan yahay waay taas haddaan hore oo gaabanay waxa ka dambeeyay waxa sameeynaa in wacyi gelin la sameeyo dadka ay ogaadaan meesha ay wax joogaan waxa ay leeyihiin faa'iido soo galaysa iyo khasaarada waxay u ahayn inay ogaadaan waa insha Allah taas waa arin muhiim ah تكلم لك كويس waxa weey dadku waxa leeyahay dawladda way farfuuda baarlamaanku way farfuud yahay oo aqbali og yahay marka arimahaas la soo bandhigo leeyahay hadda kale waxa yaala suuq oo leeyahay dastuurkii qodob waxa looga bedelay gudoomiyaha banka dhexe qof ajnabi laga dhigo eedeymahaas oo kale markay timaado soo idinku shacabkii aad ka rabteen kalsoonida iska mar raacdaynaysan daahiro farfuudaanta markaan ka hadlo maanta way joogtay adiga meeshaan googu joogaad ahayd farfuudaan haday jirto waxaad arkaysaa adiga laftaada aad ka marxaad kacdaan rabnaa wixii maanta meeshaan ka dhacda la farfuud yahay maanta wixii meesha ku dhacay wax lagu farfuudaado miya misoo wax umada faa'iido ah oo la tusay marka anu halka waxa ka arkay wax barwaaqa ah oo sahana oo laga farxiyay oo leeyahay waliba aan deegaanka soo jeedalay galmudug Hirshabeelle 3 bilyan maxay 3 bilyan waxa la soo saarto laga noolaada la rabaa marka daahiro marka taas waa inaan dadka dhan wacyi gelino u seeno waay ايوه داير ما صنت هي قدومي هي ديار واي هي قدومي سنين هي تفيل هي انا بس هي ثانك يو